kusoo dhawaada ardaaga filimada. Maanta waxaynu sharixi doonaa filim soo baxay sanadkii 2004 kaasi oo xaraabo ah oo lagu magacaabo Kung Fu Hustle. Saldhigga booliska 5 nin ayaa weeraraya taliyaha booliska sababtoo ah inuu xiray haweeney qurux badan kadib markii ay garaaceen ninkii ayay ka baxeen dhismihii iyagoo aan la kulmin wax iska caabin ah haba yaraatee. Marka ay u soo baxaan bannaanka waxay garwaaqsanayaan in waddadu faaruq tahay tiyaatarkuna uu xiran yahay. Hogaamiyihii kooxda ayaa gartay in ay wax khaldan yihiin waxa uuna isku dayay inuu ku laabto saldhigga balse mid ka mid ah booliska ayaa albaabka ka xidhay. Sidoo kale si lama filaan ah ayaa waxaa hareereeyay burcadda faashashyada. Nimanku waxay isku dayayaan inay dalbadaan in loo gurmado balse hogaamiyihii kooxda faasaska oo lagu magacaabo walaalsam ayaa u sheegay in aysan jirin cid u soo gurmanaysa. Hogaamiyihii raggan ayaa damcaya inuu baxsado balse xubin ka mid ah kooxda ayaa soo tuuraya faas kaas oo lugta ka goynaya. Kadib walaalsam ayaa si naxariis darro ah faash ugu dilaya. Haweeneydii ayaa ka tuugaysa Sam inuu fasaxo. Sam ayaa u sheegaya in aanu dumarka dilin balse waxa uu dhabarka kaga tooganayaa shotgunkiisa. Markaas waxaynu ogaanaynaa in magaaladan kooxaha burcadda ahi ay si xor ah u shaqaystaan iyada oo aanay wax iska caabin ah kala kulmin booliska sababo la xiriira qalalaasaha bulshada halka kooxda faasasku ay tahay kuwa ugu cabsida badan kooxaha burcadda ah. Big Style Alley waa degmo yar oo faqiir oo ay leeyihiin lamaanada dhexaad ah kuwaas oo dhammaan dadka kiraystayaasha ah uga faa'iideysta kirada iyo weliba xamaalka cuntada. Mulkiiluhu xataa waxa uu la haasaawaya dumarka ku nool degmadiisa. Dadka ku nool dhulkan waa faqiir dadaal badan. Maalin isagoo mid ka mid ah kiraystayaasha uu ku qubaysanayo biyihii ayaa si lama filaan ah uga istaagaya tuubada. Waxa uuna wacayaa islaantii guriga isagoo weydiisanaya waxa sababay. Haweeneyda guriga leh oo ka soo degtay jaranjarada ayaa bilowday inay caydo ninka waxayna ku andacoonaysaa in kiraystayaashu aanay weligood bixin kirada sidaa darteed waxaa laga mamnuuci doonaa isticmaalka biyaha muddo 4 maalmood ah usbuuc kasta. Waxay sii wadaysaa inay kiraysto kasta caydo ka hor intaysan dharbaaxo dhulka ku tuurtay ku dhufan kii cabashada waday. Mulkiilaha iyo xaaskiisa ayaa dhab ahaantii ah xirfadlayaal kung fu-ga ka fadhiistay kuwaas oo leh awoodo aan caadi ahayn. Mulkiilaha gurigu waxa ay ku soo noqonaysaa qolkeeda si ay u ogaato in ninkeedu uu la haasaaway dumar kale. Si xun inta ay u garacdo ayay ka tuuraysaa daaqadda. Muddo kadib Sing iyo Bon ayaa soo gaadhay xaafadda Big Style waxaana ay gelayaan dukaan timajare ah. Sing waxa uu timajarihii ka codsanayaa in uu Bon timaha ka jaro. Kadib markii uu sidaas sameeyo ayaa uu u diidayaa lacagtiisa isagoo ku eedeynaya inaanu timaha si fiican uga jarin. Bon oo iska dhigaya madaxa kooxda faaska ayaa daaha ka qaadaya taatuuga kooxda faasaska si uu cabsi galiyo timajaraha. Sing wuxuu timajaraha ula baxayaa dhinaca wuxuuna weydiinayaa xoogaa lacag ah si uusan ula kulmin carada madaxa faasasleyda. Timajaruhu uma hogaansamayo oo wuxuu si fudud ugu sheegayaa inuusan dili karin sababtoo waxaa jira kumanaan isaga oo kale ah oo halkan jooga. Isla markiiba waxaa isku hareereynaya dadka deegaanka. Sing ayaa si haba yaraatee ka cabsan waxa uuna ku xujeynayaa in ay hal qof oo la dagaalama iska soo saaraan. Marka hore waxa uu ka dooranayaa naag oo u ogolaanaya in ay feedho. Feedhkii ugu horreeyay ee ay ku dhufato ayaa in ka badan intii uu filayay gaadhsiinaya. Sidaa awgeed waxa uu haddana dooranayaa nin da' ah balse waxa uu noqonayaa mid wada murqi ah. Waxa uu mar kale ku bedelayaa wiil yar laakiin isaga laftiisu wuxuu leeyahay jidh wada murqi ah. Markan timajaraha ayaa keenay islaantii dhulka lahayd waxayna bilowday inay ku garaacdo Sing kabteeda. Sing wuxuu ugu hanjabay inuu ka mid yahay kooxda faasaska oo u yeedhan doono gurmad. Kadib wuxuu shiday rash oo ku tuuray bannaanka gidaarada xaafadda. Xubnaha faasasleeda uu hogaaminayo hogaamiye ku-xigeenkooda kaas oo rash ku duldhacay ayaa soo galay gudaha xaafadda. Sing waxa uu si degdeg ah ugu eedeynaya haweeneyda guriga lahayd inay ku soo tuurtay rashka balse ka hor inta aanu ku-xigeenku wax ka odhan ama samaynin islaantii guriga lahayd ayaa carartay oo waxay hoosta ka gashay bustaheedii. Jenaraal ku-xigeenku waxa uu dareenkiisa u jeedinayaa timajaraha balse ka hor inta uusan dilin ayaa awood aan la garanayn feer ku dhufatay ilaa uu ku dhacay daasada qashinka. Xubnaha ayaa si degdeg ah ugu soo yaacay waxaana uu ku amray inay sida ugu dhaqsaha badan ugu yeedhaan gurmad loo fidiyo. Marka xigta awoodda buuxda ee kooxda faasasleyda ayaa imanaysa. Xaafadda oo dhan waxaa ku hareeraysan burcadda suudhka xidhan waxaana ay qafaalanayaan dhammaan dadkii deganaa meesha. Mid ka mid ah xubnaha ayaa batrool ku shubaya 2 qof. Hogaamiyahooda Samna waxa uu ku hanjabayaa in ay iska soo saaraan qofkii garaacay ku-xigeenkiisa haddii kale uu 2 qof iyo xaafadaba gubi doono. Kadib waxa uu laytar u tuurayaa dhanka haweeneydii waxaa dhexda ku qabanaya xamaalkii xaafadda wuxuuna daaha ka qaadayaa inuu ahaa qofkii garaacay jenaraal ku-xigeenka. Faasasleyda oo dhan ayaa isla markiiba weerar ku qaadaya hal mar balse wuxuu
wuxuu ku guulaystay inuu iska celiyo dhammaantood isaga oo kaashanaya xirfadiisa kung fu-ga. fowdada dhexdeeda harqaanlaha ayaa sidoo kale dagaalka gelaya oo muujinaya inuu yahay kung fu master, wuxuuna xamaalka ka caawinayaa inuu la dagaalamo xubnaha gaangiska. rootilihii ayaynu ogaanaynaa inuu sidoo kale yahay mid aad ugu fiican kung fu-ga, waxaana uu xitaa baastooladahooda ku kala jabinayaa ushiisa. saddexdooda oo wada jira ayaa u suurtagelaysaa inay iska celiyaan faasaslayaashii. waxay habeenkaas kooxda faasas ku qabsatay Sing iyo Bon oo iska dhigaya inay ka tirsan yihiin kooxda faasaska. Sam ayaa amray in la dilo, laakiin ka hor inta aan la dilin Sing waxa uu ku guulaystay inuu iska furo katiinadii uu ku xidhnaa. waxa uu sidaas oo kale u sameeyey saaxiibkii, naftiisana wuu badbaadiyey. Sing ka bacdi wuxuu bariyey Sam in uu ku daro kooxda faasaska sababtoo ah waa riyada noloshiisa oo dhan. Sam ayaa ka dalbanaya in uu qof dilo haddii uu rabo inuu ka mid noqdo kooxda. habeenkii dambe iyaga oo ka wada hadlaya cidda ay tahay inay dilaan, Sing waxa uu u sheegayaa in uu doonayo inuu dilo haweeneyda guriga lahayd iyo dhammaan kiraystayaasha ka soo jeeda xaafadeeda. Bon waxa uu sheegayaa in uusan garanayn kung fu, sidaasna weligiis aanu wax u dili karin. Sing kadibna waxa uu shaaca ka qaadayaa noloshiisa. markii uu yaraa Sing waxa uu la kulmay nin iibinaya buug kung fu ah, kaasoo u sheegay inuu leeyahay weji iyo jir ku habboon inuu noqdo mid ku fiican kung fu-ga, wuxuuna ka iibsanayaa nuqul ka mid ah farsamada kung fu-ga. Sing waxa uu lacagtii kaydka noloshiisa ku iibsaday buugga, lacagtan oo uu u kaydsaday si uu u barto dhakhtarnimada ama qareennimada. waxa uu akhriyi jiray buugga oo ku dhaqmi jiray maalin kasta. si kastaba haatee markii uu damacay in uu ciyaal weero ka badbaadiyo gabadh, mid ka mid ah ayaa si xun u garaacaya oo waxa ay kaga xaraabaysanayaan in uu u maleeyey oo aaminay in uu kung fu-ga baran karo. si ay u sii ceebeeyaan weeradu waxa ay ku dulkaajeen isaga. waxa uu daaha uga qaadayaa sheekadiisa murugada leh oo uu sheegayaa in ay tahay sababta uu doonayo inuu dilaa noqdo. labada nin ayaa kadibna aadaya meel jallaato lagu gadayo, laakiin kala cararaya iyaga oo aan wax lacag ah siinin gabadhii lahayd oo layihahdo Fong. waa ay ka daba ordaysaa, laakiin waxa ay ka raacayaan bas, kadibna way ku jeesjeesayaan. maalintii xigtay islaantii guriga lahayd waxay ku canaanatay saddexda kung fu master in aysan u sheegin inay yaqaanaan kung fu-ga. waxay kaloo ku eedeysay in mooryaantii ay ka daba imaanayaan. waxay muran la gashay ilka bakayle, Jane iyo dhammaan dadkii kale ee xaafadda, iyaga oo ku bilaabay in iyada ku qayliyaan. islaantii guriga lahayd si lama filaan ah ayay aad ugu qaylisay ilaa dhala ay ka dilaacday, qof walbana uu aamusay. Bon iyo Sing ayaa imanaya iyagoo rajeynaya in ay dilaan islaanta guriga. meel koone ah iyaga oo ku dhuumanaya, Sing waxa uu damcay in uu mindi ku soo tuuro, balse waxay si lama filaan ugu soo noqotay isaga oo garabka ayay ka gashay. Bon ayuu ka codsaday in uu qabto shaqada maadaama uu dhaawac soo gaadhay, balse shiishkiisu aad buu u xun yahay, waxaana mindidii uu garabka kale kaga dhuftay Sing. hor inta aanu tuurin mindida u dambaysa, xoogaa ayuu u dhowaanayaa islaanta, laakiin inta uu mindida tuurayay ayuu Sing gacanta ka geliyey, waxauna islaantii ku dhufanayaa daabkii keliya. markii isku daygoodu guuldarraysto waxa ay damcayaan in ay baxsadaan, balse haweenaydii guriga lahayd ayaa arkaysa. si uu u cabsi geliyo, Bon waxa uu kor u qaadayaa sanduuq weyn oo gudihiisa masas ku jiraan, balse dhammaan masaska ayaa ku duldhacaya Sing. waxa uu isku dayayaa in uu iska jeediyo masaska isagoo fooriyaya, laakiin waxay isla markiiba ka qaniinayaan bishma. intaas kadib islaantii guriga lahayd ayaa caydhsanaysa Sing dhammaan wadooyinka, laakiin Sing waxa uu ku guulaysanayaa inuu ka cararo. subaxdii dambe Bon waxa uu la kulmay Sing, wuxuuna arkayaa inuu mar hore ka bogsaday dhaawacyadii, waxaana uu ku bogaadinayaa sida uu had iyo jeer dhaqso ugu bogsado. waxay arkayaan laba nin oo indhoole ah oo boorso weyn sita, wayna ka maadsanayaan. dhab ahaantii nimankan waa xirfadlayaal kung fu-ga ah oo ay soo karaysteen kooxda faasasleydu. waxay aqbaleen dalabkii walaalsam oo ahaa inay dilaan saddexdii nin ee kung fu-ga yaqaanay ee joogay xaafadii Big Style. habeenkaas indhoolayaashu waxay imanayaan xaafadda. mid ka mid a iyaga ayaa ku guulaystay inuu dilo xamaalkii, isla markiiba indhoolihii kale ayaa aaday dawaarlaha, waxayna bilaabeen inay dagaalamaan. harqaanlihii ayaa garaacay indhoolkii, laakiin markii ay bannaanka u soo baxeen waa ka tirabateen labadooda. indhoolayaasha ayaa adeegsanaya qalab muusig ah si ay ugu ridaan dawaarlaha hubka noocyadiisa kala duwan. roodhilihii ayaa u yimid caawimada harqaanlaha, laakiin xitaa dadaalkiisii ugu fiicnaa labadooduba ma awoodayaan inay ka adkaadaan labada indhool. indhoolayaasha oo ku dhow inay ka takhalusaan dawaarlihii iyo roodhilihii ayaa islaantii dhulka lahayd qayladeedii dheerayd kaga celinaysa. islaanta ninkeeda ayaa indhoolayaasha dhexdooda ka soo muuqday, waxaana uu ka burburinayaa qalabkoodii. dabadeed waxa uu bilaabay in uu garaaco isaga oo labadooda isku garaacaya. waxauu awooddiisa u adeegsanayaa inuu labada nin u kala firdhiyo sida duqsiga oo kale. nimankii si degdeg ah ayay u hagaajinayaan qalabkoodii si ay ugu dhuftaan
mulkiilaha weerarkoodii ugu xoogganaa, laakiin marwadiisa ayaa u soo gurmanaysa oo ku sii daynaysa qayladeedii dheerayd ilaa labadoodaba dharkoodu jeexjeexmaan. labadii nin ayaa in la cafiyo ka baryaya oo kala cararaya. islaantii guriga ayaa kadibna ugu hanjabtay walaal Sam in aanu mar dambe isku soo doonan. xaafadda waxaa looga baroordiiqayaa geerida xamaalkii harqaanlihii. rootilihii ayaa kaliya weli nool, kaas oo u mahadnaqaya labadooda, waayo wuxuu arkay weynaantooda kungfuuga. intaas kadib waa uu dhimanayaa. lamaanaha ayaa markaa shaaca ka qaadaya in ay rabeen inay noqdaan kuwa caadi ah maadaama wiilkooda kaliya oo u dhintay kungfu dartiis. timajaraha ayaa hore uga codsanaya inay ku tababaraan kungfuuga, laakiin haweeneyda guriga leh ayaa diiday maadaama ay waqti badan ku qaadanayso in la barto haddii aanad cabqarinimo ku dhalan. timajaraha ayaa tusaya xirfadiisa isaga oo sharaxaya inuu yahay ka kaliya ee baran kara, laakiin hal feer oo kaliya ayay ku garacda. maalintii xigtay Sing iyo Bon ayaa arkay gabadha jalaatada ee Fong. mar kale Sing wuxuu xoog uga qaadanayaa lacag. waxay damcayaan inay ka tagaan kadib markii ay dhaceen, laakiin gabadha ayaa usoo bandhigaysa mid nacnac ah. waxaynu ogaanaynaa inay dhagala-dahay, waxayna calaamad ugu sheegaysaa in ay garanayso. Sing wuxuu garanayaa in ay tahay isla gabadhii uu yaraantiisii isku dayay inuu ka badbaadiyo weerarada kahor inta aan la garaacin. Sing ayaa midhka nacnaca iska tuuray oo cararay. wuxuu noqonayaa emotional oo u sheegaya Bong inuu ka hadho, oo waxa uu gacanta u gelinayaa lacagtii ay xadeen oo dhan, una sheegayaa inuu ku laabto tuuladoodii. kadib waxaa qabanaya laba nin oo faasasleyda ah, waxaana loo geynayaa Sam. waxa uu u diray hawl u ogolaanaysa inuu ka mid noqonayo kooxdaas. waxaa la geynayaa cisbitaalka dhimirka, halkaas oo la taliyaha kooxda faasku u dhiibayo khariidad, una sheegaya inuu aado qolka ugu dambeeya oo uu sii daayay ninka ku jira. Sing ayaa dhaqso ku galaya meesha, inkasta oo uu arkay calaamado dhowr ah oo u tilmaamaya in aanu sidaas yeelin. haddana waxa uu isticmaalayaa xirfadiisa qafil jabinta si uu aayar u furo albaabka birta ah. gudaha waxaa ku jira nin dhexdhexaad ah oo lagu magacaabo Mr. Beast, oo aan haba yaraatee u ekeen mid awood gaara leh. Mr. Beast ayaa la keenay xarunta kooxda faashka. ciidana ma aaminayso inuu yahay dilaa weyn. la taliyaha ayaa weydiinaya qiimaha uu ku shaqaynayo, laakiin Mr. Beast ayaa u sheegay in uu u baahan yahay kaliya cadow u qalma oo aanu lacag u baahnayn. Sam oo aan weli ku qancin hadalkiisa ayaa ka codsaday raggiisii in ay garaacaan Mr. Beast, laakiin waxba ma yeelayso garaacistoodu. kadib baaskoolad ayuu isku tooganayaa, laakiin waxa uu laba farood oo kaliya ku qabanayaa xabadda kahor inta aanay ku dhicin. iyagoo yaaban oo baqaya, kooxdii faasku waxay ixtiraamaysaa Mr. Beast. kadib waxa uu si lama filaan ugu soo dhaqaaqayaa dhanka darbigii oo uu laad ku jabinaya si uu ugu furo dhanka kale, halkaas oo ay joogaan mulkiilihii iyo marwadii xaafadda Big Style oo sugaya. waxay u yimaadeen in ay ka takhalusaan kooxda faasaska. dagaal kungfu oo heerkiisu sarreeyo ayaa meesha ka dhacaya, laakiin waxaa caddaanaysa in Mr. Beast uu u adkaysan karo dhammaan garaacistooda isagoon dhibic dhididahi ka iman. Mr. Beast wuxuu bilaabay inuu garaaco, xitaa awoodda buuxda ee qaylada islaanta gurigu wax u dhigma maahan Mr. Beast, kaas oo sidii horyaal oo kale ugu dagaalku wuu sii soconayaa iyadoo Mr. Beast ka awood badanaya labadoodaba, iyadoo aan wax doorasho ah u harin haweeneyda guriga. waxa ay furaysaa dusha sare ee gambaleelka, wayna ku qaylinaysaa. gambaleelka ayaana qayladeeda labanlaabaya, waxayna ugu dambeyntii ku guulaysatay inay tuurto Mr. Beast. sidoo kale waxay burburisay guriga oo dhan. Mr. Beast ayaa ugu dambeynta qilay awoodooda oo isu dhuldhigaya, laakiin wuu khiyaameynaya oo waxa uu ku weerarayaa qalinkiisa. kadibna wuu ku dhufanayaa, waxaana uu labadoodana gashanayaa darayo. Sam ayaa garwaaqsanaya in Beast uu khatar badan yahay, waxaana uu Sing ku amrayaa inuu madaxa kaga dhufto bur weyn. Sing wuxuu ku dhufanayaa Sam kahor inta uusan ku burburin alwaaxa madaxa Beast. cadho awgeed Beast waxa uu tuurayaa labadii master, waxauna dhulka si xun ugu jiidayaa Sing, waxauna feer xoogan ugu dhuftay ilaa uu wejigiisii ka dhex dusiyay sagxadda shubka ah. inta Beast uu mashquulsan yahay, ninkii guriga lahaa iyo islaantiisii ayaa la cararaya Sing. Sam ayaa ka caroonaya inuu u ogolaaday in ay ka baxsadaan, waxaana uu caayayaa Beastiga, laakiin Mr. Beast ayaa ku dhufanaya hal feer oo sidaas ku dilaya. kadib marka ay ku soo laabtaan xaafadooda, mulkiilaha iyo marwadu waxa ay ku guulaysanayaan in ay Sing ka badbaadiyaan inuu dhinto iyagoo isticmaalaya daawo dhaqameed Chinese ah. waxa ay la yaabayaan sida dhaqsaha leh ee uu ku soo kabsaday. xubnaha gaangiska uu Mr. Beast hogaaminayo ayaa hareereynaya xaafadooda. Sing wuu soo kabtay, wuxuuna ka caawinayaa mulkiilaha guriga iyo marwadu in ay nastaan, kadibna si tartiib ah ayuu qolka uga soo baxaya. dagaalkii ugu dambeeyay ayaa dhex maraya isaga iyo kooxdii faashka oo dhan. Sing wuxuu ku guulaysanayaa inuu midhmidh u garaaco, inkastoo ay aad uga tiro badan yihiin. islaantii guriga iyo odaygeedii ayaa ka wada hadlay sida Beast uu daaha uga qaaday awoodda Sing ee dhabta ah. kadib markii uu garaacay dhammaan xubnaha gaangiska, Sing ayaa si degan ugu imanaya Beastiga, waxaana uu hal feer bannaanka ugaga saarayaa dhismaha. waxay gelayaan dagaal aad u weyn, halkaas oo ay noo muuqanayso inay si fiican isu awood
leegyihiin. si kastaba ha ahaatee dhowaan Beast waxa uu muujinayaa awoodiisa dhabta ah waxaana uu isticmaalayaa farsamada raha taas oo ka dhigaysa inuu aad u awood badan yahay. hal mar ayuu isku dhufanayaa oo Sing u diraya hawada sare ee daruuraha halkaas oo Sing uu ka helay awood waxaana uu xasuusanayaa farsamadii gacanta. marka uu soo dhaco waxa uu isticmaalayaa farsamada gacanta isagoo Beastiga si toos ah dhulka ugu dhuftay. kahor inta aanu dilin Beastiga ayaa isu dhiibay. Beastigu waxa uu damcay inuu khiyaameeyo oo uu mindi ku dhufto Sing balse weerar kale ayaa ka naxiyay kaasoo dalool weyn ka sameeyay gidaarka ka dambeeya kaasoo u qaabaysan sida gacanta. Beast ayaa ugu dambeyn qirtay guuldarrada waxaana uu aqbalayaa Sing inuu yahay sayidkiisa. beri dambe Sing iyo Bond waxay hadda ka furteen dukaan lagu iibiyo nacnaca magaalada. Fong ayaa ka soo muuqatay dukaanka dibaddiisa. Sing ayaana arkaya labadooduna dib ayay u midoobayaan. filimku wuxuu dhammaanayaa marka iibiyaha bugaagta Kung Fu uu isku dayo inuu buug kale ka iibiyo gabadh yar. muuqaalka waxaan rajeynayaa inaad ka heshay. ku dhufo like iyo subscribe si aad noo caawiso. sidoo kale faalo ka bixi haddii aad rabto inaanu soo koobno filimka aad jeceshahay. nabadgelyo ilaa inta aynu muuqaalka xiga ku kulmayno.